السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا عشر كيني كوبعية سوفت وير، عشر كيني كويك بوكا سيدي تومناد من نمر عشر كيني سيدي تومناد. عشر كواحد نكون براندونا how to record the security money. business كمان كانت كشقين يسيد واحد شرت العقو أمانة ودد كالكور ديبانيان. كان عقتها أمانة وحلو قلت رجال إن ميل أكون جارا كورجود جريسيد أما أتكدوان جريسيد سان كاخل ضمين هنتي هذا كله. markaa waxaanu sameynaa si loo diiwaan gelin lahaa lacagta seen kaa khaldamin hantida aad adigu leedahay baan ugu talagalay casharkan kusoo dhawaada dhinaca practicalka. marka aad diiwaan gelinaysid security money ama lacag amaana waxaad sameynaysaa steps yar oo fudud ba sameynaysaa. marka hore waxaad tagaysaa customers metrics waa khaldamay waxaad tagaysaa company make channel journal ba kasi tagaysaa then waxaad sameynaysaa halka waxaad gelinaysaa deposit baad ku qoraysaa deposit bank baad ku qoraysaa halka tan meel banaan baad ku dhufanaysaa set up baad dhahaysaa bank baad dooranaysaa then continue baad dhahaysaa marka lacagtii baad okay save and close baad sii dhahaysaa save and close ma dhahday halka waxaad ku qoraysaa lacagtii lagu dhiibtay ka soo qaad $2,000 baa laga dhiibtay halkan waxaad ku qoraysaa deposit waxaad ku qoraysaa deposit account payable baad ku qoraya macnaa waa deen la dhiibtay ka labada way bateen lacagtii la dhiibtay way badatay ka kalena way badatay kana waxaan ku qorayaa waa halka waxaad ku qoraysaa waa other liability other current liability iska qoraysaa halka continue baad dhahaysaa then continue baad ka dhahaysaa marka waa deen la dhiibtay intaasaad ku diiwaan gelinaysaa marka aad ka hadlaysid amaana security diiwaan gelinaysaa ama lacag amaana ka soo qaad lacagtii reportkayga halkay ka muuqanay ka aan kaa tuso reportka qaybta ka muuqanayso deposit lacagtii lagu dhiibtay waa $2,000 then deyntiina halkan ay ka muuqanaysaa meelaha soo jiidno waxay tahay liability aan soo jiido hore u soo jiido wataa waxay meelahan ka muuqanay ada current liability aan soo jiido horta si fiican u muuqatay halkan waxaad ku araysaa deposit account payable waa $2,000 marka lacagtaasaan la dhiibtay ka soo qaad lacagtii waan u caliyay oo ninkii iga soo doontay block bacdi meeshii baad ka tagaysaa marka dib u caliyay lacagtii ama aad qofkii siisid company tag make channel journal ka sii tag shashadeeda iska weynaysiisto halka waxaan horeysiin markii hore deposit bank baa horeysiinaya laakiin halka waxaan horeysiinaysaa deposit account payable baa horeysiinaya markaasaan lacagtii ku qoraya halka $2,000 then waxaan sameynayaa halka waxaan ku qoraya deposit bank waxa ay soo baxay deposit bank $2,000 then save and close marka labada account wayna yaraadaan marka reportkayga tagayo aan reportkayga ka eego balance sheetkayga iska eego halka way ka ay ka baabaaday deposit banki halka hoosena ka eego inay ka baabaaday halkana waa ka liability ka baabaaday oo lacagtii waxay ka dhigantay inaan siiyay ninkii ii dhiibtay ka casharkeeni intaas aan ku soo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.